nin cabsida uu ka qabo dumarka awgii door biday kali noolaasho. intaan ugu galin sheekadan haddii ay tahay markii kugu horeysay aad na soo booqato fadlan nagu soo biir mahadsanid. 17 jir ku nool qaaradda Afrika ayaa in ka badan nus qarni ku noolaa gurigiisa si kalinimo ah sababtoo ah waxa uu ka cabsadaa in ay u soo dhawaadaan dumarka. ninkan ayaa 16 jirkiisii dareemay cabsida xoogan ee uu ka qabo dumarka ama dhidhiga oo dhan, mana uusan u dulqaadan karin in ay hareerihiisa joogaan ama uu arko iska badaaye in uu la hadlo. tan iyo waqtigaasi ninkan waxa uu dhistay aqal leh deer weyn oo qoryo ka samaysan, banaankana ma uusan uga soo bixin tan iyo waqtigaasi. dadka xaafadda la degan oo ay ku jiraan dumarka uu ka cabsado ayaa caawiya, waxayna boodka gurigii uu dhistay ninkan uga soo dhiibaan wax kasta oo uu u baahan yahay sida dharka, cunooyinka iyo wixii kale oo uu u baahdo. inkasta uusan albaabka ka furin dumarkaasi, haddana wixii ay siiyaan waa uu ka qaataa. inkasta oo uu naga cabsado, haddana annaga unba caawina. sidaas waxaa warbaahinta Afrika u sheegtay mid ka mid ah haweenka caawiya. marka aanu caawinayno xitaa ma ogola in aan u soo dhawaano iska badaaye in uu albaabka naga furo. inkastoo aan la ogaanin nooca xanuun oo uu qabo ninkan, haddana waa xanuun dhif iyo naadir ah oo lagu arkay dunida, gaar ahaan qaaradda Afrika. ma doonayo haweenku in ay iga soo agdhawaadaan waayo waan ka baqayaa. waxaa sidaasi warbaahinta u sheegay 17 jirkan aan weli curan. waa sababtaan u dhistay aqalkan weyn si aysan iigu soo gelin haweenka, ayuu hadalkiisa sii raaciyay.